dhinaca kale u kaco dad hay'ad u dooda xuquuqda dadka aan UN-ka ka hadli karaynin ayaa bug dorhaad soo bandhigtay UN-kay ku soo bandhigtay saddex qolo way ka gudbeen bay yiraahdeen imtixaankii waa in la ictiraafaa kow Kosovo iyo Bulgaria iyo Somaliland aan ka gudbo dabaaldega aan ka gudbo maanta Muqdisho dabaaldega ka dhacay oo kale waxa isu yimi dad fara badan oo qoyahana haween dhalinyaro saddex casho waxa laga doodayay 18 May maxaa keenay maxaa qabay u leeyihiin inay go'aan misaana goyn waxay ku soo gabagabowday ma qasaara go'aansutaaga Somaliland misaqas waxay yiraahdeen qasaara maaha waa guul ay gaadhay Somaliland waana ku hambalyeynayna waana garab taaganahay haddaba waxa la yaab leh qolo qorraxdu ku dhacday oo meel ay u socdaan iyo meel ay ka socdaan aan kala garanaynin oo 16 sanadood caalamku ka quustay waxay doonayaan aan la garanayn oo Somaliland oo ka tagtay looga taglayahay bal in yaraan soo qaato in yar aan waxtaab aan yaraan ka taabto Somaliland waa dal xora laba dal oo israacay bay ahaayeen dabadeedna haddii dad adduunku intuu israaco hadduu heshiin waayo waa kala tagaan Yurubaa kala tagtay oo kuwii Ruushka kala tagay oo Afrika kala tagtay oo bini'aadmigu hadduu wix isku darsado heshiin waayo waa kala tagay waxa la yaab leh nintiisii u taag waayay oo laga quustay oo wuxuu doonaya wax kale la kala garan oo Somaliland ku habsaamay kow aan ku soo gabagabayo hadalkayga waxa la yaab leeyahay oo fajiciso nin dadkiisii laynaya oo ay baabaasan yihiin oo Somaliland argagixiso ku sheegaya haddaba geedi waa la yaabay ma kuwa dadkaad soo laysay daadihinaya argagixisaa mise adigii soo laayay baa argagixisaa nin boqora baa la yiri war cadaalad samay dadkii baabiisay sidaa xun baad u gashay Honduras la oran jiray wuu la yaabaa wixii si fiican baan wuxuu wadaa maxaa dadku ila yaaban yahay maalintii dambu doonay inuu dadkii daris u dhigo afar madaxdu luqunta ka soo gooyi dabadeedna kuraas buu dhigay dadkiiba u yeedho wuxuu yidhi aniga cadaaladu waa taase miyaana fiicnayn haddaba cadaaladda haddii loo yaqaano dadka oo la baabi'iyo annagu dadka oo la daryeelo iyo dantayada ayaanu naqaanaa ee raalli ahaada waxaan dhinaca wakacaya waxaanu anagu qaadanay waa maamul baanu leenahay dawladda qaran laanu nahay qodobka iyaga koowaad waxa dastuurka iyaga ku qoran Somaliland waa qaran madax bannaan qodobka 123 lama taabtaan weeye madaxweynaha Somaliland daahir riyaala kaahin iyo dawlad iyo mucaaridba waa cadayeen inaan midnimada dib loo inaan mar dambe aan dib aan halaabu noqonayn kow ta kala dambeynta aanu leenahay iyo dimuqraadiyadda aanu gaadhnay iyo halka aanu mid ku leenahay aan hirka aanu higsanayno waa mid cad oo aan ka noqosho lahayn waxa la yaab wafdiga gaana jooga ayaa khudbad akhriyay maanta waxa uu yiri waxaan dalkayagii geynayaa maan arag oo annana malihin barlamaan mucaarida iyo dawlad kale oo muxaafida oo wada shaqaynaya waxaan dalkaygii geynaya oo ku oranaya war maalin haday mucaaridku barlamaanka qabtaan bala dhici maysa Somaliland baanu soo aragnay raalli ahaada war tusaalaan Afrika u noqonaynaa tusaale qoladaanana waxa kuga filan waxaan ku soo gabagabanaya hadalkayga deris wanaag iyo walaalnimo iyo wixii laba dawladood lahaan jirtay ayaanu diyaar idin lanahay haddii la aadiidaan dulqaadka yagi iyo deganaanshaha haddii la diido wala doorkan maanta bunduq caaradii iyo rasaas baan ku deeyaa faraskuna ma daalana
faraskuna ma daalana kii dirirtii aan ku galay kal hore kaba sii dardara wacan daantuna seexo ima odhan wasalaamu calaykum